annagu waa ka maaranay adigu fuul waxay sidaan ilaahay rasuulkiisu daha fuulo idinku waxba rasuulka ilaahay la qaybsanina awre nabigu calayhi salaatu wasalaam awrka isagoo ha fuulo idinkuna aa lugayseen waxay idhahdeen ilaahay rasuulkiisiiyow adaanu kuu daynaa adigu fuul waa ka xadiidka musnadu imaamu axmed ku qoran ee darajadiisa ugu yaraan ay xasantay haddaanay saxiixba noqonin waa ka nebigu le calayhi salaatu wasalaam maa antuma biaqwa minii walaa ana biagna can alajri minkuma wuxuu ku yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam war labadiinna horta igama xoog badnidin buu yidhi midda kalena ajarkana idinkama maarmo yani meesha aakhira la wada raadcaynaya adduunya raadcays meeshan ma jira buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam haddaad rabtaan inaan anugu fuushanaado idinku ajarka heshaan anna ajarkaas weeyaan kaan doonayaa buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam marka ajarkana idinkama maarmo oo anna ajar ka tegi maayo idinkuna igama xoog badnidin buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam yani waxay tani tilmaamaysaa mujtamaca marka ay dareemaan qaa'idka iyo askarigu inay isku si wax u qaadanayaan inaan hunguri la kala badnayn inaan cidina cid tuhmaynin waxa fududaanaysa inay daacadu badato istaqbalka iyo kala dambayntu inay badataan in ninka madaxdii uu noqdo qof la aamini karo oo maadaama uu arkayo askarigiisii inuu la naf qaybsanayo nin waliba maca jananka ciidanka wata maca madaxweynuhu inuu markiisa fuulayo dadka una markooda ay fuulayaan aan qofna qof wax ka badsanaynin waxay taas keenaysaa dadku isku xidhnaantooda iyo inay dareemaan waxa kan in ilaahay dartii loo wada wado oo qofku markaa isna adduunyo ka dheeraado markuu arko dee kii u madaxda haba ilaahay rasuulkiisii oo le awrka fuuli maayo idinku markiina fuula wuxuu dareemayaa qofkani inaan meeshan ciddan kale hijirin in janno la wada raadinayo idan isaguna awr fuulka waxba moodi maayo iyo haddii hantiyoo dhammi dhaafto waxba moodi maayo walidaalika baa ilaahay rususha markuu soo diraba rasuul walba waxa koowaad ee la yidhaahda iska fayd waxaa ka mid ah tuhmada ah inaanu meeshan dhaqaale ka rabin wamaa asalukum calayhi min ajri buu rasuul ilaba leeyahy rasuul kasta marka la soo diro waxaa la weedhuhu dadka ku leeya waxaa ka mid ah wamaa asalukum calayhi min ajri wax hantiya iyo awoodaan xoolaan idinkuma doonayo qadiyadda tan xoole idinkuma doonayo marka ay dadka kale dadka wax wadale marka markuu qof dareemo inta kalena inaanay dhaqaale doonin xataa isaga haddii hunguri markii hore waday isna waa ka tanaasulaya oo iskaga tegaya walidaalika bay saxaabadu waxay u ahaayeen dad aan hunguri adduun aanu haynin markay arkeen rasuulkoodii hogaaminayay mowqifka uu ka taagay calayhi salaatu wasalaam adduunyo ayay iyaguna adduunyo meel iska dhigeen dhallinyaro ma ahayn rasuulku markuu caynkan lahaa 55 jir buu ahaa markuu leeyahay igama xoog badnidin awrkana calina waa imise jir waa nin yaro aan 20 kuu buuxsamin bay u badantay yacni hadduu u bato waa nin uun islaamku markuu soo degay waxa la yidhaha 8 jir buu ahaa ama 10 jir buu ahaa iyo 13 sane marka waxaa laga yaabaa iminka inuu 23 jir meelahaasi ama 24 yani wuxuu 25 jir ka yar marka calo 25 ka yar ayaa raba nebiga oo 55 maraya inuu yidhaahdo anigu markayga adigu fuul markaasuu nebiguna leeyahay igamana xoog badnid ajarkana idinkama qaniyahay oo anna kama maarmo ajarkee idaaya markaygaana na fuulayahay waxaa la yidhaahdaa culammaai taariikh say sheegayaan ibnu isxaaq baa ku soo arooraya biduuni sanade magaalada wuxuu madax uga sii dhigay baa la yidhaha cabdillaahi ibnu maktuum inuu dadka salaada sii tukiyo oo nin indhoola ahaa dabeetana markuu marayay baa la yidhaha arrawxaa meel la yidhaahdo madiina 40 mayl u jirta ayuu haddana dib wuxuu u soo diray abaalubaaba oo uu yidhi magaaladii madax ka noqo amiir inuu magaalada u noqdo ninkaa horena waxa la yidhi dadka salaada tuki taanina waxay caddaynaysaa bay culammadu yidhaahdaan deegaanku inaanu madax marnaba ka maarmin mujtamacu yacni madax la'aan inaanu noolaan karin walow safar ha ku jiro ama dagaal ha ku jiro ama nabad ha ku jiro ama xarbi ha ku jiro wuxuu doonaya ku jire in loo baahan yahay mujtamacu mar kastaba inuu kala dambayn yeesho abu sufyaanna war baa gaadhay dhanka kale markaynu eegno muslimiinta iyo ciidankoodii markaynu intaa ku dhaafno abu sufyaanna war baa gaadhay odhanaya in lagu soo baxay oo muslimiintii oo ciidan inay ku soo baxeen abu sufyaan markaa ariiq kale ayuu maray baa la yidhi isaguna nin la yidhaahdo damdam ibnu camr alghifaari
na wuu kiraystay wuxuu u kiraystay inuu quraysh u wargeeyo علماء تاريخ روايات بدن وان xoog badan lahayn bay soo arooriyaan oo masaa'ilkan ku saabsan waxay sheegaan ninka kan Abu Sufyaan ciidanka inuu hor soconayo kolba uu soo eegayay inuu cidirayay inuu tariiqa aamini waayay oo dabeetana uu saxanaha dabeetana nin inuu ku soo baxay meel jooga oo labada qolob ee heshiis uu ka dhaxeeyay saxaabada iyo quraysh ba heshiiska qoladan muwaadacaadka iyo xilfiga lala galay kamid aha ninkii inuu ku yiri warina waxaad qoonsato meelaha ma ku aragtay may cidna ma arag buuli ceelkaas laba nin awrtoodii intay joojisteen weel ka dhaansadeen oo ka cabeero ka tageen Abu Sufyaan waxay yiraahdaan in aad u maskax badan buu ahaa soo cararay meeshii buu yimi wuxuu eegay bay yiraahdaan awrtii meesha fadhiisatay saaladeedii ayuu burburiyay bay yiraahdaan saaladii buu laftimireed ka dhaxlay bay yiraahdaan markaas wuxuu yiri tani waa la calaaif Madiina وأورتي مدينة بودي مدينة حولها هذا الله دقا لافتمرت كي وح كان أورت عقضي أيو كدر ما إن أنا أورتي تذكر بادية دس كدا يصير تقوله إن أنا هم بدر ما بالي هذا على كل حال وقصص كأيوريان أصحاب الصيرة سكستان نقطونا إنك كان يوحوا هلا ينور شيء جيه إن أنا يوجد كني آمن هاي دبتنا جد كي وجوي أو وريجي بض حقيقة بحر الأحمر كدين عيسى بضع عسدين عيدا وضعه أيوه طلابي إنه مدينة بحقها كوضع مرة أو دين عاسي كوريجو أيوه كنت الشضي وحكالات دريني كاسي ضمضم من عمر الله يدادي الغفاري وحانو دريني كاسي قريش وطقوا وحاتي هذا حوليه إني هداد دفاع عن إنسان قال يو دفاع ابن عباس يا عروة بن الزبير بانا وحي الشيغان نسلانتي عاتكة بنت عبد المطلب اللي ورنجري نبي الدواء هيدنا وحلينا عوي الرياضة وحيكون رياضي قريش أن استنفار ويدي سنة ورصايا عيوليه هاي ودبتنا دقح وين وكراسة توري جبل أبو قبيس بورتنين عن كحكته ودقحين تبربري مقالة مكة وقالوا يقولي كستا وحكا الدمية يوكالي وحانا إلى الرياضة سوا بصوت يسكو قبتين بالا إلى عباس يا أبي جهل بابا اللي بيكون كلا نحمر قاعد بالا إلى إلى يوكيمي لكن إسناد قضية داسك صارت وإسناد ضعيفة ومرسل لكن ده مرسل كان ضعيف سنة كنتي سكلا وحسن بين هذا ابن إسحاق الله يو رجع إرساليين تلقى قرسينيه لبضا مرسلة دي اللي سوق يوم يسحوجين يا الندى والله الماما هدي ما لها كسوق على بحنا يكلا قديسين سكستها النقطة وحلا هذا لكن ضمضم هذا مقالة ديني علماء التاريخ وحي شيء ضمضم قابلنا حدين بدن بيسوء روريان يدنا ومقالة ما كسوق ليه أو كيبو كورا حاجة كلو رجعي أو سانك صوت شري أو مرض وسك صوت طوري أو يعني البلايا شيء نوما سيبدانتي سويت الممطون هيا يدي طلع يككعيدة سجوا الرورة يوم كاسيو قايلين يوم عاصم كلو صوت علي ولا اللطيمة له لأن اللطيمة دوا حوالها انسداد طيب كي وحاسي يعني تجارة إني ورسوا قاعد يسقوله أيو صوت علي قريش ورك كان صاعق أبو كنوق ده مركه ورا يقادن كرواية وأيو هو يوعينين طريق الله يرجع القلية ورا عين كاسية يد مناوشات يرول له ببلس كتورتورية وحاسية لكن ده ما يصلحين بمسلمين تحوق أنت كصوب حنبي وحوله نقاد دونا كمية تلقلين بدك على حولها كان واحد هاي بالله حولها وتربطن له ونظام كودي الربا وكامر كلو قدو قوا حلا ده هدي لا كنت كونو دينار بوسيدي ده فايدة دي سورة كنت كون كما يران سوق يران وبقى كونو دينار ودور بقى كونو كيلو ذهب waxay u arkayaan inay khasaare aad u badan tahay quraysh markaa waxay isku urursatay inay xoolaha kan dhiciso quraysh waxay isugu tagtay xoolaha sida ay u dhacsan lahayd inay samayso ciidan iyo rag iyo hub iyo waxay haysay oo dhan way isu keentay waxay kaloo aragtay arrintan inay tahay yani isla weynideedii iyo sharafteedii iyo karaamadeedii iyo meel lagaga dhacayo in kooxdii yarayd ay magaalada ku dhibeen ee yaacday ee baxsiga ku baxsatay quraysh ba tijaaradeedii ugu waaweynayd inay qoladaasi ku guraysaa inay u tahay markaa nimanka kan yani wax
la duleysanayo kale quraysh dulaysi la duleysanayo kale bay u arkeen inta aanay kaba fakarin qadiyadda tijaariga ah oo ah yacni xoolaha intaan leega la dhacayaba intaanay qiimaynba waxay u arkeenba meelka dhac weyn inay ku tahay sharaftidii quraysheed in maanta waxeedii la boobo saasi daraaddeed bay waxay cid haysatay oo dhan bay soo ururisay waxay yidhaahdaan ninka xataa dib isu yaro dhiga ama siraadaha odayada quraysheed ba u tago la canaanto yacni waa lagu qasba dagaalka in loo soo baxo rawaayadka saxiixi waxay ku soo arooreenna ciidan kun gaadhaya inay ku soo baxeen ibnu isxaaq biduuni sanad isagu wuxuu ku soo saaraa 950 nin meelahaas inay haayeen laakiin waxaa la yidhahaa ciidan kun